kulan haboon daawadayaal meel kastood naga daawanaysaanba waa mar kale iyo barnaamijka dunida haweenka oo si toos ah toddobaadkiiba hal mar aad uga daawataan CBA TV xaruntiisa magaalada Hargeysa iyo toddobaadkan idinkaga imanaya toddobaadka daawadayaal barnaamijka marti waxa ku ah Leila Maxamed Saleebaan Leila Suuban waa gabar abwaanada aad u da'yar isla markaana kamid ah dhalinyarada reer Somaliland ee wadanka wax ku bartay walow ay xilligii jaamacadda uun ka yara baxday wadanka inta kale laakiin waa qof ku sugan wadanka Leila toddobaadkeeda barnaamijka ku marti ah Leila soo dhawow aad baan u dhaweey Nuuray aad baan u mahadsantahay waa tahay kulleeyda qofkii weyn baa taariikh ka sheekeeya inta aanu ka sheegnay taariikhdaada ayuun baanu ku soo koobaynaa laakiin haddaan si toos ah barnaamijka u guda galo Leila waxaan ogahay inay tahay gabar abwaanada oo kale bulsho badani xagga social media ay ka garanayaan toddobaadkan barnaamijka ayaad marti ku tahay Leila goormaad is ogaatay inaad wax curin karto بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراي وهرين الله بما هذا بعد ما هذه له أديك إيه دمان هو وذينا ذا عدك برجع أفريقيا وما هنقيا أنت هذاك جاي ما دام هنقا نوراي أرتقورتان أنا أجادي أما السودان تيدو أي أمد أصابح ذي وحي هيد السودان تيدو أمد أي qaadatay ama aan la wadaagay markaan iskuulka heerka shanaad marayay dugsiga hoose dhexe ama galaaska shanaad ba horta wixii koowaad umada u soo baxa ay laga qaatay ama dayaan umada ay ka qaadatay waqtigaan waxaan sameeyay nashiido dugsigayga markaa ku saabsan oo waxbarashadan aad u jeclaa marka waxay markii koowaad ee Soomaaliland 3 bilood laga dhigay fasax bariga hore dugsiyada hoose ama fasaxa wuxuu ahaan jiray 2 bilood bariga koowaad 3 sano laga dhigo 3 bilood laga dhigo bay ahayd waa iskuulkan aad ugu xiisay kadib markaas aan waxaan sameeyay dugsiga hoose dhaxan ka soo baxay sheekhu sarkawna loola jawaabay markaa nashiido u sameeyay laakiin waxaan xasuustaa in mararka waqtiyada xilliga ka horeysay dadka dhalinyarada iga waaweyn baan iskaga dhex jiray bariga hore waa timisayjada mobilada la isu diri jiray waxaan xasuustaa hablaha dhalinyaradii markii iskuulka la qoray aan af Soomaaliga bartay uuradeydii oo kale iyo tirigii laga soo bilaabo inay igu oran jireen Leila noo qor message waxaad qortaan jecel oo wax yar oo israac raacsan marka ma garan karo waxaas barigaas inuu ahaa gabay inuu ahaa maaso inuu ahaa jiifto inuu geeraar ahaa laakiin waxaan garanayaa inaan ku oran jiray horta waxaad ii sheegtaan magaca qofka loo dirayo deetana magacaas ay oran jireen iyaguna ay oran jireen gabadh eeday ahayd ay oran jireen hablaha kale saxaabtiin ku oran jirtay Leila ku qorto message wax yar oo israac raacsan magac uu sheeg marka waxaan soo oran karaa bariga ku dheeda ma waxa aad qori jirtay gabay waxa waxba ku leeyahay waxa ku israac raacsan laakiin qalbigayga waxa ku soo hana qaadayba qalbigayga laakiin inaan markii bulshada ay si toos ku ogaatay si toos u ogaataa macallimiinteedii ay u soo gudubtay macallimiinteedii kadib ay ugu dhiirigeliyeen waan gartay waa tahay Leila kullay gabayada qof walba dhinaca maasooyinka qof walba dhinaca kaga jira bulshada haday noqoto wax sheeg haday noqoto arimaha soo yaani bulshada haday noqoto dhinaca jacaylka haday noqoto gubaabada iyo siyaasadda labadaba Leila dhinaca ka gabayda suwaanteedu way dhinacyo badan tahay inta badan waxaan ahay dadka iska dareenka nugul waan gartaa marka halabuurkuna saasoo inta badan u badan yahay qof iska shucuur dhow marka aniga sugaanteedu jacaylka aad bay ugu badantay walibana waqtiyada ay aadka ugu badnayd salaam markaan grade-ka 7aad ama heerka 7aad ee iskuulka dugsiga hoose dhexe ilaa iyo inta aan form 2 waxaan soo oran karaa waxaan jecelahay kabaad gabi jiray waa tahay marxay xilkii kale laakiin way iska bedelay way isbedeshay arrimaha bulshada hawlo badnaadaan waan gartay kulli maasooyin fara badan hadaynu dhinacii ugu horeeyay jacaylka aynu qaadano maasooyin fara badan halkan baad ku haysaayo jacaylo seen magacyadooda ka arkaya dhamaantood ba aad hadhow nagu rushayn doonto laakiin kulli dumarku inta badan jacaylka
way jiraan dad badan oo noloshooduba jacayl tahay laakiin siday u soo bandhigtaan ama uga gabyaan aad bay u adag tahay laakiin adigu waad soo bandhigto ama bulshada baad ka hadashaa ama naftaada baad kaga hadashida wadiga nala wadaagaya talow sidee bay laynugu dhiiratay iyadoo gabadha waliba markaa iskuulka aad hoose dhexe galaaska 7 ahayd wabad yaraydba sidee ugu dhiiratay in jacaylka noo soo bandhigto ama bulshada u sheegtay maase ahaan ama gabi ahaanba kula wadaagto horta hadda maase sida waxa la dhahdaa safiir caashaq أنا سفيرك مسؤوليات بولية أنا سفيرك جعلك سومالي ده مركا كل ما سيدا سان واحد بدنا سومالي جعلك ورت ووناك قرت حدي وددي سلام مرو ووناك وحنا دونيدو كل سنتهاي عيبنا مله hadii la ceebeeyo un baa yeelanaya marka kulay ma sidaas wax badan insha Allah oo jacaylka iyo sidoo Soomaalidu u fahansan tahay iyo sidoo isagu yahayba waxyaabo badan naga hoga tusaaleen doonta insha Allah marka safiir cashaq man ku bilowna safiir cashaq ku dheeyo in ku bilowna safaradiisa halkay ku taal safaradiisa qalbigayga in kulay meel kale raadin ma sida safiir cashaq waxay ku bilaabaysaa horta dhamaanteen inteena badan dadka Soomaalidu jacaylka waa la col ama sidii ama cadawga kale ula hadlaan ama uga hadlaan uga gabiyaan uga heesaan uga gabiyaan uga heesaan marka waxaan war anagu jacaylkiintan saaragnay suldaankiisii baan arkay dadka waxaan jacaylo anagu Afrikaan baabanu nahayo awood iyo Itaal iyo dadka degan baba lagu boobuq kara anagu niyad lagu booqo lagu qaybiyo toona ma hayne waxaan ka daba dhigay teeda kale nin boodari leeyana waa diga dishay boqolkiisii haraad iyo magtiisii de Soomaali hore kaama qaadan ana maanta ku haye iska dhig jacaylkii wuu ii gar sheegtay waxaan ii sheegay wuxuu ii gaarsiiyay xaalad aan anigu dhageysto oo intuu garti iga helay waxyaabo badan oo Soomaalida ka qadanaana oo i fahansiyo oo yiraahdo idinkaaban aniga ima sababaya wadada la raacaysaana wadadaydii iyo tii jacaylka toona maaha ee idinka waxay ka qaldan yihiin bal waxyaabuhu ii sheegay baan kula wadaagi doonaa ama kala sidii bal ma ruuxi ana anigu bay ruuxay waxay ku bilaabaysaa waxa lahay safiiru soo dirsaday jacaylku ee Soomaaliya maqal wuxuu yiri suldaankii shiru saaka noo furay Soomaali ima baran ama ii sifeeyo sidan jooga gaarsi marka saatir weynaha qadarkiisa loo sugo waxaan ahay sameeyaha aqalaasal guuray ma yahay marka soorayaan ahay sodohiyo maseediya intuu maanku saxalsaday mid ka meelo siigo doob suursanaa waa sahan galiyabaano sumadaydu waa guul cilmigaad sadqayso dayo ruuxna maadsiin idinkaa samaystee ruuxaad sumaysaan dushayaan la ii sudhin haddanika maxaa ku dhacay sidee buu u noolaan saxareen loo baday markuu yidhi siduu rabay idinkaa ku sayree safaadkiina eersada sirtu waa jacaylkoo sadku waa qofkuu rabo idinkuna sadiya maal subag ruuxa aan lulan sumcada ka qaadaan jacayl bulaaduuna xaloolanaya niyada sumcada ka qaadaan xilaf malatara hadaba qofkii jacaylkaas ama waalid hawdiido ama qofkii uu la wadaagi lahaa hawdiido adduunka kaga xidhay qofkii baa hadlay sakaraad markuu galo waa kii jacaylka lagu diiday sakaraad markuu galo isna kii ku dilay seef suuxiyay ma doonta jacaylku saloosha يا دكاني بضايع يسوي ما إيجابا يا سلام هي ubax lagu sahaayiyo sad Ilaahay weeyaan ubadkiyo saqiirkuye hadaan samada lagu qorin sama iyo xanaaniyo jacaylkiiru saacmale ee waa ka socotay uma Ilaahay baa la soo balantay labadii qof isku kursay jacaylka lahaa waan isku gursan ubad hadii waa la kala dhaqaaqay jacaylku baabay ma markaa jacaylka sagaalkiina loo dhalo balkii caruurta ku horana eeg sagaalkiina loo dhalo Soomaaliya ma laga helo arin lagu sugaayay sacab iyo aroos kale saarkiisu waa gabadh talaxawna yaliimaan xadiiskii nabiga عيسى السلام عليه قالين حديث سيدة صحيحة قل سيدي ميسي يان دينتا لغو سرين سبقية هوانك سورتها إلهي موجودة السنانة ونبي عليه الصلاة والسلام هو مركز أوده قول ما لك أوده مركز لبا قول كريدو بهلي كرتا سؤالي بحيو فهمت كينا لغو في عني wuxuu guursanaya markuu laba qol kale kiradooda bixin karo buu soonaya guurso laakiin anaga asaasana wuxuu dhahday hadii aad gabadhan cabay u soo iibiso
waa inaad tan kalena aad cadayga siin karto waana sintaa si walba nolosha ay u sinaadaan laakiin bale iska bada inay sinaadaan ninka waxyaabaha ku waajiba waxa kamid ah nafaqada ama quudinta reerka dad iyagu aan mas'uuliyadaas ay gabadha la mashaaxayso ay suuqa wax ku gadayso baa gabadh kale guursanayaan waliba inay ilaahay farbiibani oo waajibkaagii inaad qaadatada sida marka waxa la sida ay garanaysan in afar leedin baneeyay ee xadiiska aad u qaadaysan xadiisyada kalena u dabaqa xadiisyada saxiixa ku dhuseegmayse yaan diinta lagu sarin sabiga iyo haweenka suuradaha ilaahay ma wada sinaana waxaan jacayl maxad abwaanadan kugu diray dadka suugaanyahanka ama hoobal ha ahda ama abwaanaha adoo ku wada ooyee maxaa kugu diray wiiga jawaab xiriir dhanka kale sarbeebyahan suugaanta sheegayo haddaan sarin abwaanada saldhigyo ka dhigan goob yaa idin sawiri la caashiqu siduu yahay suugaanyahankayna baramanaga ogaa baran balay yaa idin sawiri la caashiqu siduu yahay haddaanina sareebaan wax masaleebaan bide haddaanina sareebaan sureeqiyo ku weyneyn samirtuu la kaashaday waa adigan siliitiyo hawraartan sooca miyaad saacan heli lahayd hadana abwaaniintu waxayna iftiimin waa heestiisii waa adigan siliitay leexada ku sidatay waa adigan siliitiyo hawraarta sooca miyaad saacan heli lahayd weersame sidii roob hadallada marso wardahan sida sacabka awliyo siba kuuma mariyeen jacayl dhiiga loo saray sararaha cad laga jaray lagu sugay salaantii waa siduu hadraawuba u sifeeyay caashaqa ya salaam haye khadra daahir cigaa la maraya khadra oo sindheero wali sidata buugii iyo gabar safkeedii haddii aana saayadin si yar kumaba heesteen waqtiga oo weligaada howlgalnimada waxabay ahayd badhibaatada hodan cabdiraxmaan hodan surad korkeediyo waa buurtii surada buurama ku taalay hodan surad korkeediyo surimada New York haddaan suurta qaybkeed midba saacad eegayn soo dadaal ma qaadeen waa isti soo dadaalo dhawaanaha la dhageysanay amiin uu sameeyay samadoon nacimaab waan qoragaa la maraya nacimina siday tahay sanqaroorka muuqdaa qabku soo riraayo sanqaroorka muuqdiyo sida loo sameeyaa qabku soo riraaye waxa seeta ugu xidhay wiilkaas anaag jira sababaha aftahanimo kaabi kama sal gaadheen waa kaab Axmed Caydi kaabi kama sal gaadheen haddaan sabab wanaagiyo kay saadinaysa qalbigeeda saas dhigan ya salaam sadarada cajiibkiyo saameynta guunkii inama isulaaqdeen sanadkeenu joogno xuduudaha musuufteen waa heesteedii xuduudaha ka murugooda xuduudaha musuufteen aniguna sinaan kabe waa jacaylkii dadka saacidaan ahay aniguna sinaan kabe dadka saacidaan ahay sancadiina weeye haddii aad sal fududaan inaan saadka noloshiyo kuu sida wanaagaad sabankani ogaan layd aan soo afmeere waxaan ahay safiiru soo dirsaday jacaylkuyo 8 maalin oo qura safarkaygu weeye ruuxiisu halqaba hayla seegin baan istaa shaka dib istiqaarada waa dhiibaya tasdeed ma dhamaan ma sideed waa taasoo ka bilaabmaya waa tahay leelay jacaylku hoga tusaalaysa dabcan habla abwaana ah iyo rag hadii noqoto abwaanadii waa Axmed Salbaan bidda ku jiro weersamo kala ku jiray oo abwaanada daahir ma cadda u gabiyo kala weersamo jira baa la yiraahdaa khadra daahir oo hooyadii jacaylka ah dabcan ayaa ku jirtay waxa soo dhan marka laga yimaado leeyla too jacaylkaasi mar qura ma saameeyada igama maqna kulay waxa cilmigiisa bilaash uga hadlaya igama midna marka awaanintu waxa oo jacayl soconaya dabcan waa tahay dhinaca jacaylka ka bixi mayno dabcan maanta barnaamijku waa jacayl soconaya galbaday ayaan hayaa galbada horta qasa aad waxaan u kororo aniga damaqday ayay ka curatay sida mar dhaweyd qasadeeda kaga yar hor dhacay maalin baanu ayaamahan waqtigan nimka fasaxa ku jiraan Hargeysa joogay baa inaanu waqti hore isku waxbarashada wada dhigan jirnay waanu inaanu aragno aanu damacnay marka inantii suuqaanu ku ballanay inay saaxiibiinba marka la socota anigu inantan marka garan maayo iyaduna magacayga way yar maqashay labadeedii waanu is saraanay inantii wayna dhaaftay marka iyadu labadeedii waa meel baanu fadhiisanay inantii way naga socotay in yar kadib waxaan ugu soo noqotay horta inantan aan wada fadhinaano saaxiibkani telefoonkeeda soo dhaca waa gartay
iyaduna anaa u sheekeynayo halkaas bay telefoonka qabataa sidaas bay qabataa way aamusiisaa waa gartay dabeetana in doora kadib inantii ay noo timi markaa mutalaha fadhiinay bay wajahadiisa soo istaagtay iyadoo markaa aniga mutalaha albaabkiisa eegay iyadoo inantii dareemso inaan xaaladeedu sidii ay nagaga tagtay ahayn kadibna nalama hadal iyadana way jaleecday waxa aragtay inay inantii saaxiibadeeda ahayd imka naga dhaqaaday soo soco heblaayay bay tiri marka wali anaga sheekaysan oo sheekadeen baa isax soo socday tirado inanta adu halkii bay taagnaatay sheekadii bay markaa inanta soo markaa anigu inanta isaydo waan ku hayaa sax inanta markii dambe inantani inay wax noo sheegtay inay heblaayay xataa tiraado soo kac halkay yaano waxay ku jirtaa xaaladeeda waxba ka badan qofaan yaano inay xataa ilmaysa ku soo taagan deetana xataa inay tiraado heblaayay soo kac bay kare laadaan adoo inanta way soo fadhiisatay markay soo fadhiisatay maxaa ku dhacay noo soo garaacaysa maanta oo dhan inanta waxay bilowday ilmo iyo sheeko marka si qalbiyan ay u hadlayso muxuu sidaan igu sameeyay maxay sidaan u dhacday marka anigu sheekadii aan fariid iyo waxay ugu noqotay iyo shoog waa garta labadoodii baan marka anigu inanta aamusna ma yiraahdo maxaa kugu dhacayna ma yiraahdo laakiin labadoo inantii tii kalena way aamusinaysaa inantina way daldalmaysaa oo way sheekeynaysaa oo waxay ka sheekeynaysaa qiso dheer marka qisadii ay inantu ka sheekeynaysay ayaa aniga aad ii damaqday waa garta xataa inuu qof saddexaad meesha la joogo yacni xaaladan way control kari weyday inantu marka waxay dhacday qisadu waxay ahayd inantu inaabtigeed ruma oo abtigeed dhalay bay jecesha waa garta waaba family jacaylka abuurmay haba jeclaatee inankan inaabtigeedii hooyadeedii aabaheed markay aqal galeen waa inankanuu 8 jira reerka loo keenay waa garta reerka uu xanuunsaday miyi baa laga keenay guriga waa la inanka ku koray sida weynankii carwa inanka ku curadkoodii uu buuha marka inaan aad u kalgacal badan oo wanaag badan buu ahaa iyaduna walaalkeedu ka weyn oo de 8 sano ilaa 9 sano meelaha ka weyn buu ahaa sida walaalkeed bay u qadarin jirtay ugana baqi jirtay runtii nin aad waxbarashada xaqaan ugu fiican buu ahaa marka ileen qalbiga ibn aadanku lama xukumi karo kaamana fasax qaadanayo qofka jeclaanayso munaasib ku yahay mise munaasib kuma aha automatically isaga iska tagay fasax ka qaadan maayo waan gartay marka inantii ilaahay qadarkiisa inanka waa jeclaatay laakiin ma garan karto waxaan ay inankan u qabtaa ma macnayn karto ma jacaylba ma walaalnimo iyadu ma macnayn karto laakiin waxay og tahay inay umad kale iyo dadka kale xidhiidhada iyo sheeko wadaag soo bandhigay inaanay ogolayn laakiin isma laha ma macnayn karto mar way oran kartaa mar waxaan waa jacaylkii la sheegi jiray marna kuma dhici karto mees oran karto walaalkaaba jeceshay wiilkan ku dhiiso show inanta waa jecel yahay laakiin wuxuu isagu ku tashaday maadaama guriga abtigaa joogto abtigaagi ku koriyay yahay inanta yarada aad gacantaada ku korisatahay sheeka ha u furin ee maalintaad isku filaato abtigaasi sharaf leh uga soo doona inanta uga hagaag saas isaguna isku dhaxayay inantuna ma ogeey inuu iyada jecel yahay iyaduna ma ogeey inay isagu laakiin wuu dareemay oo ay nugu kaaweyn ku baaskaaweyn dabeetana waxa dhacday waqtigeemka uu cudurkan dhacay waati magaalada la wada xidhay iskuulada la ka macallin buu bandoogi dhacay wuxuu baxay miyi dhowr bilood miyi ku maqnaa habriirteed markaa inanta oo qurbaha joogta baa nin habriirteed family-na yihiin baa wuxuu ku dhahday niyow waati waxa iska wada joogaa guriye wuxuu ku dhahday heblaayoy gabadh wanaagsan maxaad igu soo deeday wed dabeetana waxay tiraahday okay walaasheed baa la soo hadashay inantaadii heblaayo weynaati horta dugsiga ma dhamaysay sanadkan ay imkay ka baxday galaaskii afraad ee dugsiga sare nainan wanaagsan oo kuuna dhaqaya iyadana dhaqan karaan hayaadee oo halkan nala jooga qurba joog baynu ku soo duulay bal haddii la isfahmo hooyadeed iyo habarteed baa inantii ka marxiisay lambarkii baa la siiyey inantanay nin hore umaad sheekayn garan weysid sidii ninka adigu waaba isfahmeen waa sheekaysteen waaba iskugu ninkii waaba yimi inankiiyo halkii baad ku maqantay inankii baa la wacaayo dee waa la salaama hebelo miyaad imanayde waayo wuxuu ka mid yahay dad qofka koowaad ee guriga go-aanka ka go-o marka aabaha reerka laga imaado waa inankii curada reerka waa la wacaa adigu markii dambe adigu wuu yimi inankii dee fasaxina iskaba dhammaaday wuxuu yimaaday seedigiisii cusbaa
oo inantu jeclaa ka qaadi doona oo wadanka yimi inantiina meherkeedii iyo siday reer u noqon lahayd laysu diyaarinayo inankii waxoogaa uu yar dareemay laakiin qalbigiisa haddana wuxuu is leeyahay malaa waxaas waxba kama jiraan malaa waxaas ma dhici kara qalbigiisa la doodayo mala heblaayo si seegi maysaan adigu goor caweysa iyadoo taangiga biyo ka shurtay oo isna kaabada fadhiyo oo markuu laba habeen meelahaas qiyaasaan guriga u hooyday buu la kaftama kulin heblaayo imka dawad weynaatay deetana waaba soo ag fadhiisatay oo iyadoo xishoonaysa baa waxay uga sheekaysay in dee lasoo dooni doono iyo arrintii may ku tiraa hooyo may wax kuu sheegta may aabana may dabeetana arrintii bay deetana u yara korka xaadisay isagu marka horeba dee jawiga buu dareemay laakiin haddana qalbigiisa diidanaa oo lahaa taas malaa wax dhacaya maaha wuu xaqiiqsaday inanka markaa laba dacsiyo shari macaws buxidhnaa u dhaqaaqay sidii qof telefoon kusoo dhacay oo kale buu markaa inantii ka kacay intii hore markuu inantii sheekadii uu socday marka iyadu waxay u fahantay ninku telefoon kusoo dhacay oo kale alaabteeda iska qaatay gurigeeda bay iska gashay habeenkii ninku inanku wuu raagay waa la wacay wuxuu yidhaahday saaxiibka hebel baa geeri ku dhacday caawa iman maaye iska seexda maalintii labaad sidii buu inanka ku maqnaa saaxiibkiisii rawaxay dee shaqo tagay baa guriga ugu soo noqday isagoo jiif oo hebel maxaa ku dhahay saaxiibkii buu sheegay kulini waa arrintaas qabsatay yacni wuxuu yidhi intaan shucuurtaada inantu dareemin baa dhaqa ayuu yidhi siri kac markaa waqtigan sidii adigu inantii waxay noqotay inuu toddobaad deetana reerkii uu kasoo xaadiri kari waayo iyadoo waxay samaysay suudh uu lahaa guriga yaalay qaaday waxay ugu soo suudhku midabku jeclaa ayay ugu soo qiyaastay oo ay ugu soo iibisay waxay u diyaarinaysaa suudhkii meherkeeda u xidhan lahaa way waxay ku tiraahday hebel alaab ku hayaaye dimaadii manay gurigii waa kiri maye shaqaan meel baan shaqo ka helo shaqadaasaan ku jiraaye waxaad samaysaa alaab baan ku haya okay waaye shaqada kama soo rawaxi kare alaabtii suuqa igu keen ku yidhaahday marka wuuna ogyahay dee odaygii baa la soo hadlay abtigii ahaa inay inanta meherkeedii uu dhacayo saa dambe inantii waa markan show alaabtan ay sidaaba waa suudhkii markii ay inantii naga tagtay inankii meel baan ku degdegayayo shaqaan kasoo baxuu yidhaahday lamuu fadhiisan sharaab bay dalbatay uu dalbay saa markay u fadhiisatay wuxuu ku yidhaahday warqadana guriga markaa tagto akhriso dumarka salfudeed lagaba taagaleesho iyadna halkii markuu sharaabka inta cabiso isagana ma iskaga tagay lacagtii intuu bixiyo iska baxay isagu lawaanka yidhi inuu shaqan ku degdegaya warqadii bay furfurtay isagoo hadiidii loo sida buu qaatay warqadii bay furfurtay akhriday show warqadan waxaa ku qoran inuu jeclaa inanta iyaduna intaasoo sanay jeclayd laakiin qalbigeeda ku oranayay macquul maaha sad walaalkaaga kaa weyn u jeclaan kartaa dabeetana inantii shucuurteedii baa gabaygani ka turjumaya iyo inankaas sidaa waxay ku bilaabmaya gabaygu waxa laynoo degay galbaday inantii waxay leedahay waa socda inaabtigayo iyadoo markaa waxay leedahay sidee muxuu hore igu sheegi waay waxaa ku bilaabmaysaa nasab goba nin geesiya haddana garasho dheeraad leh garmadoobe gacaltooyo badan gacan furnaantii leh sama guure sifo geed ku tabo guurtinimadii leh garnaqsade wuxuu goosan karo gocoru sii daaye magabade markay geegsan tahay golaha shaandheeye gaf ma yeele guushiisa hure guudka igu qaade i gardaadshe galladayda hure goodka iga dayre intaasiba adaa gaaru helay garashadaydiiye gadaal socodka kugumaan aqoon gaabis iyo ciire garbaduubka waxaan kuu qabsaday maanku garan waaye inkastoon jacaylaan guntaday gaadma igu heeray inkastoon galiiliyoon jiroon xiise gubatoobay ereygan wax badan goobi jiray een ka gami waaye isma odhan markaad gaagaxdu soo godlanayaaye waa geli dambeed xaajadaad galabta sheegtaaye gumac iyo waxay igu ahaan geeri ila noole galbadaya intaa iigu daa gubatay laabtay oo inta meel ay ka soo noqoto ma joogto marka galbaday saasoo ahaa waxba sidaan ugu daayay Leila dadku waxay ka gabiyaan godad kala duwan godka ka gabayda ma taqaana طبعا ها aniga inta badan waxaan u badanahay gabayga laakiin maasada imika inaan bilaabo maasada inaan ku yara kaftamo ama markaan Facebook iyo meelahaas kale iskaga qoran mooyaane
inta badan maase kuma badni laakiin hadda waayadan dambe dhalinyartu waxay gudheen waxaan dhaadheer ma fahano marka waxaan gabayga markuu qiimihiisa marayo waxaan dhaadheer oo gabayga markuu hore qiimo lahaa laakiin dhalinyarta badan isaa ma fahmayaan waxaan dhaadheer markuu marayo waxay ugu qasabtay inaan waxaan gaagaabanay doonayaan oo maasadiya inaan la bilaabo marka labadaba waan gabaygaagii inta ugu noqonayna erey baa ku jiray gocor dabcan bal bulshadaan garanayn gocor muxuu noqonayaa gocor waxay noqonaysaa qofka aan gocor waxa imika wuxuu noqonayaa tusaale ahaan qof garasho ahaan dadnimo ahaan deeqsi ahaan intaaba qofaan u madnayn ayuu noqonayaa sida haliyey unbuu noqonayaa imika soo deeqsi dhabcaal kama soo horjeedo wuxuu noqonayaa haliyey un cakiskiisi ama kasoo horjeedkiisi gocor waa inaan gumeedo kale dabcan jacaylka iyo bal ilaa maanta dee waxbaa si aynu ugu hoorayey waynu kasoo noqonaynaa hal maaso ama hal gabay oo la yidhaahdo ha ka baqan dhaliilaha ayaan ku nasanaynaa jacaylka kaga nasanayna inkastoo jacaylka wax laga nasta aanu ahayn dabcan oo ilaa caawa haddaynu bulshada uga sheekayno aan marnaba laga xiisagoynayn dabcan ha ka baqan dhaliilaha waa maaso dhiirigelina waxay ku bilaabmaysaa dadka guusha dhaliyaa dheeraad kumay dhalan waa adi dhigaagoo yaro dhiiranaaduun dheemaal cadceedaha dhaxan iyo qabow soco dhididoo haddana daal dhayo laguma gaadhee idhacsay ku leedahay guushaad u dhalashaa ma og tahay dharaartiyo xiliyadan ku dhaafaa dhidbo oo haddana dhiga guushiyo dhalaalkee haddii aanad dhaaday hadmaad deefsanaysaa dhigashiyo qoraalkiyo adoo qalinka dhuuxo misna ereygu kuu dhicin dhisanoo haddana madhan waa dhimasho iyo nolol labadaa dhexdoodee dhanuu nolosha soo raac garka lagu dhaqaajaa waa ka dhagaxa gooyee adig iyo dhadhaabaha kii neebal dhaga nugul dhuduhiyo xiskaagiyo adigoo dhammayso dhuduhiyo xiskaaguba dhuduhiyo xiskoo idil aday kuu dhammaysiin oo dhaama noolaha maxaa dhiiga kaa jaqay haddii maanta dhiilkiyo dherigaagu madhan yahay ha isdhiibin weligaa kolaad dhoobo qooshtood dhabarkaaga raratiyo shirkadahan dhaweeyaha kolaad yaro dhex qaadiyo kolaad dhiraha beertoo dhulka loo shaqeeyana kolaad dhaqaha weelkiyo shaah-dhiibo noqotana muquruqaaga dhaansoo qofna gacanta haw dhigan hanku dhumaca yeeshee u samee dhabiya maran yaan dhoofku kaa xadin dhimirkiyo xiskaagee dhaqaaliya samee nolol dhowdhowda qaar iyo dadka lama dhagaystee ha ka baqin dhaliilaha ka dhabee hankaagiyo hirka soo dhawaaqoo abidkaa ha dhalan rogin isku beeg dhardhaarada isku soo dhawaado isu dhaarta guushii kaasna waa dhiirigelin dabcan waa tahay Leila su-aashii u dambeysay ayaan jecelahay inaan ku weydiiyo arrimihii jacaylkaynu ku noqonaynaa baryahan dambe haasaawihii waa isbedele dadku waxay iska gursadaan social media Facebook number 1 ha ahaade bal adigu jacaylka social media maxaad ka aaminsan tahay niyo horta jacaylku waa qof walba meesha uu galo qof walba waa meesha uu galo muhiimaduna ma aha horta anigu ma oran karo lagumana kalsoonaan karo mana oran karo waa lagu kalsoonaan karaa laakiin kole waxa fiican un qofkaad nolosha la sameynayso inuu yahay qofaad ab iyo isir xidid ilaa debaar qofaad u garanaysa inuu yahay meesha doonaba iska soo barataan marka waxaan qabaa inay kolba labada qof meesha calafka u soo maray iyagu sida uga munaaqashoodaan ay ku xidhan tahay taas waa tahay dhanka kale ee rag waxay yiraahdaan wuxuu noqday heerin bariga hore dumarku way heermi jireen oo sida dayayaasheen ama awooyaasheen dadku waaweynaantiin ka soo gaadnayno ka maqalo dumarku intii heerma bireeru tagi jireen reerka dabeedna guur la'aan kaga ma jirno xaal baabay noqon jirtay waa heerinkii oo habluhu mar hadii inantii hor istaagto aan jacayl soo bandhigan kareen waxay noqonaysaa wax si fudud ay jacaylka uga soo gudbin karto adigu taa ma aaminsantahay ka Leila ahaan inuu yahay heerin dumarka oo wax u wanaagsan ba xagga dumarka uu yahay runtii horta maraaxil kala duwan buu goor ku soo maray heerin buu soo maray dhabar garaac buu soo maray kala maraaxil kala duwan buu soo maray ismalihi anigu ma darajada ma saari karo oo ma oran karo
dumarku heerinka gabadhu markay yara weynaato oo kale baa dumarku heerimi jireen oo waxa xaaladaha keeni jiray laakiin social media hadda noloshii oo dhan baa ku jirta oo waxbarashadii baa ku jirta cilmigii baa ku jirta qaababka kala duwan bay ka mid tahay waana yar yahay imka nolosheena caadiga markaynu eegno ma laba qof oo intay sidooda isu barteen social media isu soo dhaweeyo oo hab wadaagii sheekadoon uu u soo dhaweeyo ma ahaana way yar yahay inta badan inta guurar ama laba qof oo is arag oo aan is aqoonin marka nolosha caadiga laguma xukumi karo yani waa wax yar baan kula inta aqal ka dhisantaa social media laakiin dumarku jacaylka ma soo bandhigtaan sarigaasi sax ma waa sax maxaa kalifayay in wix kastaaba hadeer wadan wax la joogaa adduunka wax dhaimka wax la joogaa moodare wax kasta casri bay noqdeen marka in kii hore laga soo guuro oo intaasoo guri dhisantay waa ninun baa dhisay oo inantu halku doonaba ragu hanku doonu leeyahay halku doonu gali karaa laakiin gabadhu inay iyaduna sida bedelkeeda ay yeesho maxaa diiday kale abwaanad baa tahoode inta waxba hoga tusaaleynaysa ayada ka abwaanku uu ka indhadeer yahay dadka kale dabcan hadii la yiraahdo horta gabadhu guurka maxay heeday jacaylka ma sheegtaan sababtuna waxay tahay ilaahay xishoodka iyo xayaaga uu ku gadaamay baa sababaya laakiin haddana dumarka ilaahay wuxuu siiyey maskax aad u cajiib badan waxaa jira wadooyin kale ay u mari karaan jacaylka oo yacni taas ku dhicida waxa la siiyey yacni wadooyin kale oo ay u mari karaan tusaale ahaan dumarku xaq dhowrkeeda dadnimadeeda qofkaas oo kale wala asxaab bay la noqdaan xaq dhowrkeeda dadnimadeeda iyaga yacni si dadban bay iskooga iibiyaan ilaa ay gaarsiiyaan heer ay ninka jacayl ku abuurtaanba laakiin talabaadna waxa noqonaysa horta wax walba waa dhaqan iyo diin bay adduunku dadka usal ah dhaqankeena oo aaminsan laynugu ababiyey laynuguna koriyey oo ah inay gabadhu noqoto gabadh dhowrsan dabcan mana aaminsani inay wax badan inugu seegaan run ahaantii aniga dadka aad boqolkiiba boqol dhaqankeena dhinacyo badan u taageersan meelo way jirtaa uu ku hooseeya dhaqankeena laakiin xagga xishoodka iyo xayaaga waxaan aaminsanahay anigu inaanay wax badan inugu seeganayn tusaale ahaan qofku wax badan ma soo kordhiyo yacni inaad wuu soo kordhiyaa laakiin mararka qaar tusaale ahaan jacaylka markaad qariso mar walba waxaa korodha qiimihiisa iyo qaayihiisa dabcan qofkan ah si haddii aanad afka uga sheegi karin qaabab kale oo aad isticmaali kartood uga iibin kartaa dabcan jirta marka waxaan leeyahay cidii horta de kartidaa leh horta anigu ma oran karo laakiin siyaasiyiinta bedelkeeda oo wax badan oo ka dabcan wax badan laguma seega wax badan laguma seega iyada fahankiyo dadkii marka waxa leeyahay afka ka sheeganina laakiin ka iibiya dabcan waayo hadda nimka ku dhaada aad uga jecel aad uga sheegtay ninkii dhaqankeena ayaa wuxuu saamaxay inaad qiimahaagii qayb kamid ah lumisayba hadda ninka jacayl sheegato dabcan qiimahaagii qayb sadkayntii leeyahay isaguna uu ku fahmaya reelay sadkayntii weeye marka ay raggu dumarku waxay doonayaan ay diidayaan oo gabadh arweeyo jiray ba kala dardaarantay waxay tahay Soomaalidu waxa been way sheegaa laakiin been ma mahma كل mahmahdaasi waa wax hore looga soo shaqeeyo loo soo darsan marka dabcan taas bay iskugu soo biyo shubanaysa marka waxa leedahay sadkeynta ku dadaala laakiin qiimo ku yaana aad iyo aad u maadsantahay aad iyo aad baan leeyahay kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga ayaad noo soo hortay leeyahay gabagabadii iyo gunaanadkii hoga tusaaleynta jacaylka iyo hilaadintiisiiba ilaa maanta waynu ku jirnay gabagabo barnaamijka ku dhow yahay bal maasada magaceeda iyo sababahay ku timi iyo waliba adoon noo raacinaya gabagabadii maadaama la caawiyo waa marina jacayl ah oo laba qof waliba jacaylkii isla haya oo marka la jacaylku ugu qiimo badan yahay wala maanaheed dabcan ha isla hayo waxay oranaysaa ku dheeraan mayne iyada sharaxaysa waxay oranaysaa hadaan ahay dhaayahaaga ana tahay dhaymahayga ya salaam lugtiina barkii ku gaadhay anay tahay dhaawacayga intaad igu dhaadanayso ayaan ku dhololayahay dhigaaga adoo ka soocan adoo dhiigayga raacay sideen cidla kuugu dhaafay ya salaam dhawaaqiyo erayadaada anoo ku dhiteeyo maanka xasuustaadana dhidbaaya inaan u dhantaalo dunyo jacaylkan soo dhaqaynay runtii dhimashaa ka roone dhaqaaliyo xoolo buuran adduunyo ma dhaafsanayo ya salaam dhaliishiyo eedahayga adoon xamilayn dhibkayga haddaan kugu dheelo maalin haddaan dhabarkaa waxyeelo damiirkaygaan dhammayne dhawaaqa iblaysku ad awdan haweenka adduunka dhooban haddaan kali kuu dhalaalay
anaadii tahay dharaarta dhulkeena iyo maalin ciida يا سلام sidii dhalashiyo dad uurka ka soo wada dhacay hal maalin ayaad ii dhowrataaye dhigaalkiiyo maansadayda inaan dhaxal kuu sameeyo dhabtii adigaa mutaystay adoo dhaqankii rasuulka sallallahu alayhi wasallam adoo dhaqankii rasuulka adoo dhismihiiyo asluubta kasoo dheegtoo qur-aanka xadiisyada ii dhigaya dhafoorka midkaa cadaystay miyaa dhinacaaga keeni hubqaadkiiyo dhoobadaada siduu rabbi kuu dhameeyey dhowr baa kula siman garaadka haddana dhowrsani ku dhaaftay ilaahay dhambaaladiisa ninkii qofkii kaba dhoohanaada dhagaa ka furaysanaya cadaabaa dhayalsanaya annaga hadalnama dhex yaalo soomaalida ii dhuraysa intuu hadal dhaafay taxaawada dhaawadoobay sidii dhaydii hashayda maraan dhadhankooda yaabo waxaan uba dhaadi waayey waxaad dheerto xishooda intaas maasdaasna ku gabagabowday dhafoorka cadaaday tomo waxa loo jeedaa ragii da'da waaweynaaye imka ay dhahdo habluhu aad bay u guursadeen waxa leeyahay wax kasta oo labadeena ka soo hadhaba sabab kale macalafkoo ma sheegin laakiin sabab kale oo dhanba kaagama taga ha ka baqin la kaaga tago يا سلام هذه الدليلة يوم هاتسنتهاي برامج قروح بدن إلا ما أنت تدمر رجل بكور متشيل تعايلك عفوا لكن ما أنت وحنا هينا تعايلك يا جبرة إن هذه بدن هاتسنتهاي برامج كنا إنتاس أيو وكل ماضي وحمرتكو هيد ليلى محمد سليمان ليلى صوبا صاروا وحكاها هنقول نور النلكة إنجنير رضا يقلق يبقى عبد الرزاق يديره لما أنت وحنا تجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom